بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن وعن ميل كستا أدونك جوجتان ولا لها شرفت له ولا لها عنكم دوني إسلامك يا خيرك يا وناقة يا صومال النمذا. ميل كستا أدونك جوجتان رمضان مبارك رمضان مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هاتك له رمضان بدن نوافجينا وذا كلنا وذا هذا النوع. طبعا سيداد وقتين برنامجدي aan idin la wadaagi jiray hakada ayaa galay sabab ay jira awgood anigoo maartay safar iyo hawlo kale iskaga mashquulsanaa waxaan si mar walba naftayda u hilowday oo aan jeclaa inaan idin soo fadhiisto oo aan idin la wadaaga khayrka. طبعا waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysnayd Ramadaan marka la maqlo maxaa kugu soo dhacaya waxa kugu soo dhacaysa salaad quraan akhris cibaado ma sha Allah waxa kugu soo dhacaya jawi aad iyo aad u qurxoon oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xusayo. waan ka xumahay dadka qaarkood Ramadaan marka ay maqlaan ama ay soo gaaraan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursad u siiyo inay ka fikiraan cuntada ay cuni lahaayeen iyo maalinkii sida u jiifi lahaayeen ay gaajada isu dhaafin lahaayeen. ujeedada ugu weyn ee bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jiday walaalayaal waxay tahay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsano oo aanu dareeno taqwadiisa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. warkuwi iimaanka laga helo kutiba alaykumus siyaam waxa la idinku waajib yeelay soon ayaa la idinku waajib yeelay. Allahu akbar. كما سيدي كوي دين كجهرية أو كلا سون كله واجب يلي ومدينة جهرية أيكنا سيدا سو كلا سون كواجب يكوها لكن وجددوا محيطها يا ربنا ما إنا نجاجونا ما إنا نباتونا ما لعلكم تتقون وحد مدنتهن إلى عبسها الشان وإلهي سبحانه وتعالى عبسدي سادر انتان. طبعا قفك إلهي درتي سوسوما وقاجوضا وهراضا ودريمي كرا إيمانك إيه فرحدة إلى هذا يسمك وليه. طبعا ولا ليال إن بدن ونسوق قابلني إلهي سبحانه وتعالى ونكعاسني القرآن آخر بدن ونكسوق قابلني صلاة بدن وسنوين ونكسوق تكني بشهر رمضان وحل الرباين إنه نقطة مدرسه مال توبرة اسكولك توبرة عيد ما دم مغري جرتين بشهر رمضان وتوبر واحد كو توبرة نساء إن الله سبحانه وتعالى درتي سوسونديد إن الله سبحانه وتعالى درتي سوقا جوتيد واحد أكتين ولا ليال صومك وكدوينها عبادوينك كلا الله سبحانه وتعالى وحديث القدس كله هي ابن آدم قفك بالآدم أعماش أو سمية لن أسقى يا أسكاله إلا الصوم صومك مؤجية فأنا أجزئ به aniga ayaa ku abaalmarinayo ka abaalmarinayo abaalmarintu Ilaahay subhanahu wa ta'ala si gaar ah ku abaalmariyo dareemi kartaan. waxaad ogtihiin marka xafladaha la fadhiyo ama dadka la salaamayo waxa la salaamaa marka ugu horeysa marti sharafta waxa la salaamaa madaxda wasiirada xildhibaanada dadka sidii marka u kala sharaf badan yihiin ayaa loo salaamaya laakiin acmaash bil aadankana sidaas oo kale sida u kala qiimo badan yihiin ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ugu abaalmarinaya. Ramadaanku walaalayaal waa bishii dadka isu keenay jirtay waa family waa caylada ama reerka markay meel fadhiistaan isla afuri jireen qoyska keenay jirtay. haddaba waxa loo baahan yahay bisha inaan ka faa'iideysano insha Allah ta'ala barnaamijyada soo socda iyo barnaamijyo badan oo aan bisha isla wadaagi doono waxaan ku eegi doonaa isxasuusinta Allah subhanahu wa ta'ala. waxaan jecelahay inaan walaalahay mar walba xasuusiyo fursad ayaad haysataan waxaad xasuusataan bishan dadkii soo gaaray bisheedii kale dadkii joogay maanta inaysan joogin laakiin hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waafajiyay adigoo caafimaad qaba adigoo mataqaana nabad qaba haddaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhawaan weysid waxaad halis ugu jirtaa khasaaro ayaa ugu jirtaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay Ilaahay uma dambi dhaafo Ilaahay uma naxariisto Ilaahay cadaabka ku fogeeyo qof Ramadaan soo gaaray oo aan loo dambi dhaafin. walaalayaal waxa loo baahan yahay inaan firfircooni muujino inaan quraanka akhrino quraanka daadan akhrin karin waa inaad dhageysataa macnaha Ramadaan waxa weeye waa bishii quraanka shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waa bishii quraanka la soo dejiyay walaalayaal inna anzalnahu fi laylatil qadr marna waxaan ugu soo socota maalmaha tiri maanta laba ayaa ka tagtay qofkii aan ka faa'iideysanino haddaba ka faa'iideyso oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xus oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhawo oo walaalaha khayr kala jeclow oo qalbiga ka saar xiqdiga iyo xasnimada wixii hore dhan iska hilmaam. Ramadaan ayuusan ku noqonin muddo yar aad ku muudide noqo mid aad
sanadka dhan keyd ka dhigatid waxa aad shaqaysatay ayaad leedahay waxa aad shaqaysatay oo aad qabriga la gashid ayaad leedahay haddaba ilaahay subxaanahu watacaala fursad ayuu ku siiyey ka faa'iidayso oo walaalkii naasir cadceed oo idin leh ilaahay subxaanahu watacaala dembigiina dhaafo dembiga waalidkiina dhaafo ramadaan mubaarak meel kasta adduunka joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu